mahadsanid cabdijamaal macalin axmed. munaasabadda xuska sanad guuradii 59aad ee kasoo wareegatay markii gobolada koonfureed ee Soomaaliya ay ka xoroobeen gumeystihii Talyaaniga kuna beegan israacii gobolada waqooyi iyo koonfur ee Soomaaliya ee Beledweyne lagu qabtay. waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin Hirshabeelle ka socotay, siyaasiyiin, saraakiil ciidan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. madax ururada bulshada rayidka ka socotay oo hadlay ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed munaasabada 1 Luulyo. cawada waa cawo farxad leh waa 1 Luulyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leenahay hambalyo sanadkan sanadkiisana ku gaara cimri dheer iyo cibaado suuban iyo caafimaad qab. 1 Luulyo iyo qiimaha ay leedahay waxaan maleynayaa inteena badan Soomaalida inay wax badan ka dharagsan tahay. waxaana 1 Luulyo waa maalin taariikh leh, waa maalintii xornimadeena ay qaateen Soomaaliya qaadatay. runtii waxaan rabaa in la xasuusto mar walba oo saan loo weyneeyo. gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax, kusimaha taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan gaashaanle sare Cali Cabdi Mahadalle, abaanduulaha guutada 5aad ee ciidanka xooga dalka ee gobolka Hiiraan ka howlgala oo dhammaantood hadlay ayaa yiri maalintii calanka Soomaaliyeed laga taagay cariga Soomaaliyana waqooyi iyo koonfur ay ku midowday 1 Luulyo aan caawa dabaaldegayna darteed waxaan hambalyo u dirayaa qowmiyadda Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka ka joogaan. 1 Luulyo ha noolaato Soomaaliya, ha noolaato Soomaaliya, ha midowdo. gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda maamulka gobolka Hiiraan Xasan Ibraahim Cabdulle iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan ee magacaaban islamarkaana aanan weli xilka iyo xafiiska la wareegin Cali Maxamed Caraale oo dhankooda iyana hadlay ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed munaasabada 1 Luulyo. caawa farxad waa habeen weyn, waa habeen aad xusuus u leh, waa habeen ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan caawa aad ugu weyn tahay. ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan hambalyo. sanad guurada 59aad ee kasoo wareegatay maalintii xornimada Soomaaliya ee qaatay gobolada koonfureed, isla markaana ay midoobeen labada gobolada waqooyi oo la dhihi jiray Somaliland Territory iyo goboladii koonfureed oo la dhihi jiray Italian Somali British. labadaba isku soo wada mareen markii midoobeen la dhihi jiray 1 Luulyo ay xornimada qaateen. shacbiga Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan leeyahay hambalyo. saacadda markii ay ku beegneed abaara 12 saqdi dhexe, cutubyo ka tirsan ciidanka guutada 5aad ee xoogga dalka ayaa calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ka taagay madasha munaasabadda ay ka socotay. waxaa xusid mudan in munaasabadaha 26 Juun iyo 1 Luulyo ee Beledweyne lagu qabtay ay hareysay xiisadda siyaasadeed ee weli xal aan loo helin ee Beledweyne ka taagan. waxaana mar kale xalay Beledweyne ka maqnaa munaasabadda 1 Luulyo loogu dabaaldegayay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, xildhibaano iyo wasiirada dowladda dhexe ka socda oo Beledweyne ku sugan. waana munaasabadii labaad oo iyaga oo Beledweyne ku sugan loogu dabaaldegaya calanka iyo xornimada Soomaaliya oo ay ka maqnaadaan mas-uuliyiintaasi. markana aan idinku duwa gobolka Gado, gaar ahaan magaalada Garbaharre iyo qaabka munaasabada 1 Luulyo looga dabaaldegay iyo wakiil wareedka TV-ga Kalsan Xamdi Maxamed Aadan.